دولة قدتشا اسكتوبني بقى نفسي غراني مية دولة لقوهتا دادك يقوم اسكتوبني بقى qolka marti sharaftay gegada dayuuradaha ayaa waraysi lagu la yeeshay madaxweynaha waana kan madaxweynuhu waxa uu ka qaybgalayaa shir madaxeedka ururka iskaashiga ee dowladaha Afrikada bari ee la dagaalanka abaaraha iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah nasiib wanaag waxaanu kula kulannay qolka marti sharafta ee gegada dayuuradaha ee magaalada Muqdisho su'aalaha aanu madaxweynaha Soomaaliya Jalasiyaad weydiinay waxa ka mid ahaa jalla madaxweyne wax ma nooga sheegi kartaa ahmiyadda shirkaasi iyo qodobada ugu waaweyn ee lagu soo qaaday marka horeysa waxaan rajaynaya dadka Soomaaliyeed khayr iyo barwaaqo waxaan sidii ana walba oran jiray kula talinaya ku gubaabinaya in ay danahooda qabsadaan maslaxadooda adduunyo aakhirada qofku dantiisa isaga qabsada nino uma qabto fikradda dantayda cid kale ay qabato inay iloobaan oo tooda u jeestaan oo isku aaminsan dadkooda iyo dalkooda waxaan ilaahay ka codsanayaa inaan isugu soo noqono nabadgelyo su'aashaada haddaan u leexdo waxaa isugu imaanaya sida aan ka warhayno madaxda geeska Afrika abaaraha amaba horudhigidda dhaqaalaha shaqo kuma jiro waa arrin fiican waxaan rajaynaynaa in la isku raaco la isku afgarto ay uga faa'iideystaan sidii wax looga qaban lahaa khilaafaadka ku dhex jira dalalka xubnaha ka ah ururkaasi qaarkood waxba kama sheegi karno hadda sababtoo ah waxaatan ka hor ma aynan jirin tala ah arrintu waxay ku xirantaa la dagaalanka abaaraha iyo horudhigidda dhaqaalaha wixii ka soo baxa ragaduusiimada waxbaa ka soo bixi karaan laakiin hadda ka hor wax la soo qaaday ma jiro yaal madaxweyne ma laga yaabaa in shirkaas kadib ay booqasho rasmi kaaga bilaabato dalka jamhuuriyadda Jabuuti waa ay marti qaaday dowladda Jabuuti waana filayaa anna waa ka aqbalay hadda waxaan moogna nagu imaanin waa filayaa saas noqono madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigaasi ballaaran ee uu hogaaminayo waxa gegada dayuuradaha ee magaalada Muqdisho ku sii sagootiyay si galka caltooyada madaxweyne ku xigeenada koowaad iyo labaad
Somali kulaha
dugaag lagu eryaa dadka yagoo isku duubniba cadow lagu dijaa isku duubniba dugsi qaranimiyo dowlad lagu hantaa dadka yagoo isku duubniba